madaxweynaha dowladda Kenya Uhuru Kenyatta ayaa booqasho ku tagay saldhig military oo ciidamadiisu ku leeyihiin deegaanka Doble. madaxweyne Kenyatta ayaa wuxuu halkaas kula kulmay saraakiil ka tirsan ciidamada Kenya oo qayb ka ah howlgalka midowga Afrika ee AMISOM. waxa uu sheegay in ciidamada Kenya ee ku sugan Soomaaliya ay xoojin doonaan howlgallada ka dhanka ah xarakada Al-Shabaab. isagoo hadalkiisa sii wata ayaa wuxuu ku amaanay ciidamada dowladda Kenya sida ay uga qayb qaadanayaan howlgallada ka socda dalka Soomaaliya. Na ndipo tukasema ni vizuri tuwe tunakuja kuwatembelea, tuwawekee motisha na tuwaambie ya kwamba please keep your spirits high, please keep the morale and tempo, knowing that what you do each and every day is not only recognized but fully appreciated. Na tutafanya sisi lolote kuhakikisha ya kwamba tumewasaidia na tumewasimamia kwa njia yeyote. dhawaan ayay ahayd markii madaxweyne Uhuru Kenyatta uu sheegay in ciidamadiisu aysan isaga soo bixi doonin dalka Soomaaliya isla markaana ay sii wadayaan dagaalka lagula jiro xarakada Al-Shabaab. Keenan Abdulqaadir Xuseen, Kalson TV, Nairobi.